General Faysal Maxamed Xasan Falaalig oo ka mid ah taliyayaasha ciidamada xaqu-dirka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ka warbixiyay dagaalkii qaraaraasaaka u dhaxeeyay ciidamada xaqu-dirka xoogagga ACC iyo kuwa Somaliland. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada Somaliland saaka ay soo wareen furmaha hore ee fadhiisimada ciidamada ACC kadibna lagu jabshay. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay qabsadeen gaadiidka xambaarsan qoryaha waaweyn. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. Bismillah. wixii jabaahiirta reer ACC iyo jabaahiirtooda iyo hiil walaal iyo inta ummadda midnimada ummadda Soomaaliyeed ee diinta Islaamka ku taagan dariiqeeda saxaaba. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. goobtan oo ka mid ah goobaha cadawga Soomaalidiidka haddeerna argagixisada ku darsaday waxaan shirkan saxaafadeedkan ugu qabtay labadan maalmood dagaalkii socday inaan warbixin yar oo kooban ka bixiyo. waa qodobka labeeya waxay dadkooda been ugu sheegayaan argagixisada SNM oo ay leeyihiin Faysal Falaalig baan dilayna inaan beeniyo baa saacadda ka liftay. jabaahiirta maxay ahayd shuhadaha halkan dagaalka ka jirana iyana aan kelmad u diro dardaarana intaas ay u kaliftay. waxaan ka bilaabayaa labadan maalmood inta haddana ka tagto shalay iyo maanta cadawgu waxay isku dayadoodii ugu dambeeyay oo ah inay dagaal ku qabsadaan dagaalkii ay ku wadeen waqti dheer markay madaafiic 2 bilood la soo dhacayeen magaalada isku dayo kala dambeeyay ay sameeyeen odaygii argagixisada xukuumay waa tuu isqaawiyay maxay ahayd soo ururiyay markaan intii hore dhamaynay ciidan beeleedo mara xoogaa baa ayaamahan u biiray buu soo helay musanawi ku soo helay intuu maanta iyo shalayna dabka ku soo hay labada dagaalba waa lagaga guuleystay wayna ku jabeen argagixisadii Soomaalidiidka ahayd SNM. been buu idin sheegaya Muuse horena idinku sheegi jiray maxay ahayd oo idinku khaldi jiray haddeerna wali sii wada kamana waan towdaan inaad beentiisaas mar qura inay been tahay aad aragtaan. wiilashiini waa dhamaadeen hooyo badan iyo aabba badan meeshan waa ku gooblamay mana noola haddii idinku yiri waa noolyihiin waadna soo wadaan way dhamaanayaan kuwaas soo wadaan intii muusanoweedi kaga soo ururiyeen shalay maanta yana tageen dagaalkaas dhinacyo badan bay iskaga dayeen cadawgu inay magaalada ka soo galaan oo ilaa 3 jahay weerar ka soo sameeyeen labada maalmoodba haddeer u joogsaday. runtii dagaal buu ahaa adag oo isku dayadoodii ugu dambeeyay Ilaahay idinka rajaynayo wixii ka dambeeya haddii ay qaataan diinta Islaamka oo ku soo noqdaan dariiqa mustaqiimka waa gaalo oran maynee oo ay soo dhiibaan waa nabadgeliyeen waxaanu oran dhaqmaynaa si goobannimo leh shariicada Islaamkuna ay u ogoshahay xuquuq waxay leeyihiin wixii ka dambeeya hadday taas sameyn waayaan waxa suuqina ku bishaaraysa magsiideen waa qodob taas waa warbixinta dagaalka goojaada email haggaas dhuxun waxaas halkaas ku sii jiraarsan yihiin waa go'doonsan yihiin ku abshira xaqiiqdu waa taas. qodobka labeeya jabaahiirta waxaan akhriyay sawirro social media la wareegayo jabaahiirta dagaalamaysa xaraan caleeg inaynu sidaa u dhaqanno hadday run yihiin anagu ma xaqiijin karno dhaawac la leynayo oo ay jabaahiirtu leynayso dhaqankeena ma ahayn kii diinta Islaamkana maaha kii aynu gobonimada u lahayna maaha ha samaynina arrintaas hadday wax jira tahay ha samaynina waadna khaldanteen. yeelkeeda sababta cadawgaasina ma saarayaa iyo Muuse oo dagaalka ku raajiyay way xanaaqeen bal riisana idin raadiyo sidaan idinka dhigo hadaan taa inta kaga gudbo SNM Maxamed Riyaa jamhadda argagixisada waan arkaynay maxaabiis dagaalka maxaabiis wala kala qabsanaya
idina wad qabsanaysaa annana waanu haynaa annagu sida shareecada islaamku ay ogoshahay oo maxbuuska uu xuquuq intay siinaysaanu siinaynaa walaalnimo Soomaaliyeed iyo mid darisnimo aanu siinaynaa wali dubkii luqadina waad ku hadlaysaan dubkiina waad leedihiin Soomaalinimo baanu siinaynaa goomnimadooda waxayna faraysaanu siinaynaa ka daaya maxaabiista aad ilhaamiysanaysaan waanu sharafnaa anagu mana ilhaamiysano haddaad ka dayn weydaan waxaa la yiri caana xun dhigato adnaku muridliid ya waxaa loola dhaqmayaa sida aad ula dhaqmaysaan oo xun laakiin waxaan idin sheegayaa war dagaalkan uu dhammaan doonaa jilaalku waa haray naxariis aan harin baa la yiri maxay ahayd ka daaya maxaabiista aad ilhaamiysanaysaan ama laynaysaan waa kuwiina u dhigteen ka daaya duqaadku waa dhamaaday taasna iyaga cadow waan u dirayaa inta bacdigeed adkaystaan leeyahay reeraysi iyo walaalahoodba guushina waa taaganahay wada maadsantii taliya maanta dagaal baa dhacay u dhaxeeyay ciidamada xoogga ACC iyo kuwa Somaliland maxaa khasaare ka dhashay والله هذا خساره runtii isaga mid way iska jaayis cadawgan aan arxanka daran oo maxay ahayday aad moodid inuu xaqiiqdii haday diin islaam tahay haday midab Soomaaliyeed tahay haday nooc dadnimo ay tahayba inuu aad uga fog yahay garaaci ay magaalada waa taas waa ololeysa wixii baa la dhacaya iyadoo waa khasaaraha jira khasaaraha kale naga wasaanaya بريان عندما سمعنا وحش شيء أنا دجال قرش السوق قاضيان محاد كله هاي أرنك هذا كسر يري وقت جوابتي دي وسوق قاضين جوابته دينا واحد نادر يا ورك ساق سوق يا سوق هذا شيء ساقه دجال كفر مو بدن بوكر دعبة الشيء يا من نوت المام كرتا هذا المحيا هدي لنا عقل بيتك أو عروي يريرو يوم يا بيش الله قصوا حلي لو سوق خلطي بهايامهم بلقول يعني دقائق ولا سحلي mara xogaa baaydiin ururayba odaygu isjiri dabeedna halkaas ay aroortii hore dagaal ka soo bilaabeen kadibna ilaa laba meelood oo kale ka bilaabmay intiina waa lagu jibiyay ma jiraan gaadiidiyada u ka xambaarsan oo la iska qabsaday ha waa jiraan maxay ahaydana waxaan la ka qabsay koodaas badan aan ka qabsanay ama waa kowte magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool